السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta xalqadeenan waxaynu ku qaadan doonaa qaar ka mid a xikmadihii uu lahaa amiiru lmu'miniin abi xafsin radia allahu canhu wa ardaah. sidaad wada maqasheen in badan ee aad wada ogtihiin wuxuu ahaa cumar bin khadaab radia allahu canhuye nin aad u cadaalad badan oo xaqa dadka muslimiintu ku leeyihiin aad isaga ilaaliya. haddaba maanta muuqaalkeenan waxaan inoogu soo diyaariyey qaar ka mid ah odhaahyadii uu yidhaahday ee taariikhda galay, kuwaasi oo taabanaya dhinacyada kala duwan ee bulshada. waxaanu yidhaahday: dadka waxaan ugu jecelahay qofka ii sheega ee i tusa qaladkayga. inaad ka tagto qaladka iyo macsiyada intaanad samayn ayaa ka khayr badan inaad marka dambe ka toobad keento. qofka uu qosolkiisu bato haybadiisa hoos u dhacda. ha ku kalsoonaanin dabeecadda uu qof leeyahay ilaa yaad aragto markuu xanaaqo siduu dadka ula dhaqmo. haddii ay saboolnimada iyo faqrigu nin ahaan lahaayeen waan dili lahaa. 3 arrimood haddii aad samayso waxaad ku hanan kartaa qulubta dadka. ta koowaad waxa weeyaan inaad mar walba ku bilowdo salaanta oo aad salaanto. ta labaadna waxa weeyaan inaad soo dhowayso oo haddii aad majlis fadhidaan aad ka durugto si uu kuu soo garab fadhiisto. ta saddexaadna waxa weeyaan inaad ugu yeedho magacyada kuu ugu jecel yahay. inuu qofku ilaahay bartaa waxay ka caawisaa inuu ilaahay ka baqo oo uu ka cabsado, isla markaana uu ku toosnaado dariiqiisa oo aanu ka leexan. cabsi la'aantuna waxay daliil u tahay inuu qofkaas qalbigiisu aqoon ka madhan yahay, waayo cabsidu waa midhaha aqoonta. malaha wanaagsan oo qofku ilaahay wax wanaagsan ka malaynayaana waa midhaha ay leedahay yaqiinta saxda ahi. qofkii uu innaba hunguri ka galo inuu jannada galaana wuu ku dadaalaa sidii uu u heli lahaa. qofkii ka cabsaday inuu naar galaana wuu dadaalaa sidii uu uga baxsan lahaa. dadka madaxda ah waxaa ugu nasiib xun qofka ay ku dhagaadkaadaan racyadiisii iyo ciddii ugu talinayay. kamaan qoomamayn aamusnidayda hal mar, laakiin in fara badan ayaan ka shalleeyey oo aan ka qoomameeyey hadalaan yidhaahday. khayr ma laha dadka aan isku nasteexayn, haddana khayr ma laha dadka aan nasteexada aqbalin ee aan jeclayn dadka u nasteexeeya. ilaahay ha u naxariisto cidda ii sheegta qaladkayga. haddii aad leedahay diin waxaad tahay qof meel ka tirsan. haddii aad leedahay caqlina waxaad tahay qof asal leh. haddii aad leedahay akhlaaqna waxaad tahay qof raganimo leh. haddaanad intaa mid lahaynna waxaad ka shar badan tahay dameerka. haddii samada laga dhawaaqo oo la yidhaahdo dadka oo dhan waxay gelayaan jannada marka laga reebo hal nin, waxaan ka cabsan lahaa inaan noqdo halkaa nin. haddana haddii samada laga dhawaaqo oo la yidhaahdo dadka oo dhan waxay gelayaan naarta marka laga reebo hal nin, waxaan rajayn lahaa inaan noqdo qofkaas. qofka uu qosolkiisu bato waxaa yaraata haybadiisa. qofka uu kaftankiisu bataana qadarkii uu joogay hoos buu uga dhacaa. qofka shay ku celceliyay in badanna waa lagu bartaa. qofku hadalkiisu batana dhacdhaciisaa bataa. qofkuu dhacdhaciisu batana xishoodkiisaa yaraada. qofkuu xishoodkiisu yaraadana waracnimadaa ku yaraataa. qofkuu waracnimadu ku yaraatana qalbigiisaa dhintaa. waxaannu helnay noloshayda tii ugu wanaagsanayd kadib markii aannu sabirnay. qofna ha ku qiimaynina inta uu soomo ama inta uu salaad tukado, laakiin waxaad ku qiimaysaan ina uu ka run sheego hadalkiisa marka uu hadlo, iyo siduu ammaanada u ilaaliyo marka la aamino, iyo sida uu qof waric ah oo xalaal miirada u yahay. maalin maalmaha ka mida wuxuu u soo galay cumar inankiisii cabdilaahi radia allahu canhuma. waxaan u arkay isagoo hilib cunaya, markaasuu ku idhahday waa maxay hilibkani? inankiisina wuxuu ku idhahday waxay naftaydu jeclaatay inaan hilib cuno maanta oo waan soo iibsado oo anigaa cunaya. cumarna wuxuu ku idhahday inankiisii radia allahu canhuye oo wax walay naftaadu jeclaataba miyaad cunaysaa? kadibna wuxuu yidhaahday qofka waxaa israafnimo ugu filan inuu cuno waxay naftiisu jeclaato. qofka yidhaahdo waxaan ahay caalim, ogaada waa qof jaahile. waxaad sheegtaa runta xataa haddii lagugu dilayo. inaad ka shaqayso shaqooyinka ay dadku liidaan mid ka mid ah ayaa ka fadli badan inaad iyaga gacmaha hoos dhigato. anigu kuma wareeriyo naftayda maxaa lagaaga aqbali waayey ducadaadii, laakiin waxaan ku mashquuliyaa oo aan ku ilaaliyaa inaan mar walba ducaysto. qofka naftiisa u bandhiga tuhun iyo in la tuhmo yaanu dadka ku eedaynin malaha xun ee ay ka malaysanayaan. indhahaaga ka laaba adduunyada, kana jeeda qalbigaaga. ha kuna hodmin oo ha ku halaagsanin sidii ay ugu halaagsameen dadkii kaa horreeyey, waayo waxaan arkay dad la dhibaatooday. waxaanan u soo joogay raadkii ay kaga tagtay dadkii ehelkayga ahaa, iyo sidii ay qaawanida kaga tagtay qofkii ay huga u gelisay markii hore, iyo sidii uu u gaajooday qofkii ay quudisay iyadu, iyo sidii uu u dhintay qofkii ay noolaysay ee ay magaca iyo maamuuska u yeeshay. kuwani waa qaar ka mid ah odhaahyadii macnaha ballaadhnaa ee uu inooga tegay khaliifkii labaad ee muslimiintu cumar bin khadaab radia allahu canhu. inagana ilaahay haynaga dhigo aladiina yastamicuuna alqowla fayattabicuuna axsanah. tan iyo intaynu muuqaal dambe ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.